Gabar askariyada ah oo u dhalatay dalka Hindiya oo darajada isbitaalka ku-xigeenka gaadhay ayaa xabsiga u taxaabtay ninkii ay u doonanayd kadib markii ay sheegtay inuu khiyaamo kula kacay. John Money oo ah askariyad ka howlgasha saldhig booliis oo ku yaala magaalada Nijoan ee dalka Hindiya ayaa xidhay Rana oo ahaa ninkii ay isjeclaayeen. Waxay ku eedeysay inuu ka raacay haweeney kale isla markaasina ay ogaatay inuu yahay nin beenaale ah. Booliiska magaalada Nijoan oo ka jawaabaya dacwadda askariyada sarkaalka ah uga timid waxay xabsiga dhigeen ninkii ay gabadha askariyada ahayd u doonanayd. Dacwad noocee ah ayay kula tahay in askariyadani ay ninka ku soo ogeyso. Gal dacwadeedka kiiskan oo saldhigga booliiska yaala ayaa laga soo xigtay in John Money iyo Rana la isu hibeeyay bishii Oktoobar ee kal hore, arooskoodana loo madalsanaa bisha Noofembar ee sanadkan. Kadib baadhitaan qoto dheer oo ay samaysay, waxay heshay cadeymo muujinaya in ninkan uu khiyaamay. Sidoo kale khiyaanada dhanka guurka ah waxa uu dheer sida ay dacwadda ku sheegtay inuu yahay shakhsi dambiyo badan ku lug yeeshay. Dambiyadaasi oo ay ka mid yihiin lacag been abuur ah inuu sameeyay iyo inuu dad badan oo lacag laaluusha ka qaatay uu shaqo geeyay. Haddaba sidee ku ogaatay khiyaanadiisa? John Money oo aan magac dhabin waxa ay sheegtay in 3 qof ay gacan weyn ka geysteen sidii ay u ogaan lahayd khiyaanada uu ku sameeyay ninkani iyo waxa uu faraha kula jiro mar walba, waxayna mar walba u keenayeen xogaa cadeymo wata. John Money oo hadlaysay waxay tidhi Rana wuxuu isku kay baray inuu yahay sarkaal xiriirka dadweynaha ka shaqeeya oo u xil saaran horumarinta arrimaha bulshada. Waxa kale oo uu ii sheegay inuu wax ka bartay kulliyadda caanka ah ee isgaarsiinta iyo saxaafadda. Waana sababta aan aad ula dhacay ayay tiri. Askariyada ninkan xidhay ayaa lagu sheegay inay tahay gabadh shaqadeeda ka adag oo isku kalsoon. Bilooyin ka horna arrin dhex martay iyada iyo xubin ka tirsan xisbiga BJP ee dalka Hindiya hogaamiya ayaa warbaahinta dalkaasi si weyn u hadalhayeen. Haddaba gabadh yahay Soomaaliyeed, haddii aad tahay sarkaal ka tirsan booliiska, maxaad ku samayn lahayd markaad ogaato saaxiibka oo khiyaamo sameeyay ama ninkaaga?